بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلهي سبحانه وتعالى مخلوqa markuu abuuray adduunkana la keenay، khaasatan jinka iyo insiga wuxuu u diyaariyey laba maxal oo lagu kala abaalmariyo. wuxuu u diyaariyey daar loogu talagalay dadka muttaqiintoo hadday alla ateecaan oo ay diinta ku socdaan ee awaamirta ilaah fuliyaan loogu naxariista qiyaamaha, iyo daar labaad oo loogu magacaabo naar, taasoo ah meesha loogu talagalay cusaada iyo dadka awaamirta ilaah diida subxaana wa tacaala. walaalayaal, naartu waa daartii qisyiga iyo hoogga, waa daartii nadaamada iyo xasrada iyo shalayda, waa daartii dulliga iyo dhibaatada, waa daartii oohinta iyo rafaadka iyo dhibka, waa daar aan lagu farxin, waa daar laga qowmameeya marka la galo. ilaahay asagoo tilmaamaya inay jirto ayuu yidhi: annaaru yucraduuna calayha. fircoon markuu amarka ilaahay diiday oo taacadii ilaahay qaadan lagu kari waayey, markuu dhintay naar baa loo bandhigi dusheeda. annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaaca. maalinta ay saacadda qiyaamo qumaysay qiyaamo la gaarana waxaa loo odhanayaa: udkhuluu aala fircawn, geliya fircoon aalkiisa ashadda alcadaab, cadaabkan ugu adag buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, maanta waa daartii camalka, waa daartii cibaadada, waa daartii taacada, waa daartii khayrka iyo wanaagga la samayn lahaa, waa daartii sahayda laga qaadan lahaa. qiyaama haddii la taga imaa waad istariixaysaa, imaa waad cadaabsanaanaysaa, labadaa mid. qofka inuu galo cadaab uu ku waaro, qofku inuu ilaahay naxariis iyo wanaag siiyo subxaanahu wa tacaala. ahlunaar ilaahay jidkooda waa noo tilmaamay. qof walba oo sifaadka ahlunaarka laga hela ilaahay agtiisa wanaag uma yaalo. qof allaala qofkii jidka ahlunaarka mara masiirkiisii hoyadkiisii meesha ugu dambeeya waa cadaab. sidaa darteed ayaa loo baahan yahay maanta inta adduunka joogno inaan cadaabkaa iska ilaalino. ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam, saxaabi ayaa yidhi: maalin baan la fadhiisanay rasuulka, annagoo fadhina ayaan waxaan maqalnay wejba iyo dhawaaq, dhagax inta kor laga soo tuuray dhulka ku dhacay dhawaaqiisa oo kale. mar allaala markii aan maqalnay ayaan rasuulka weyddiinay, markaasuu noo yidhi: ma maqasheen? waa dhagax laga soo tuuray fiir jahannama afkeeda. afka jahannamo ayaa inta lagu soo tuuray 70 sanoy maanta 70kii ugu eg tahay. ilaa wuu soo socday, ilaa maanta ayuu soo gaaray buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. wallaahi ayaan ku dhaartee waa la buuxin doonaa. dhagax baa laga soo tuuray walaalayaal afka jahannamo, waa soo socday ilaa 70 sano.
mar allaala markii 70kii sano dhammaaday ayuu salkii soo gaaray. saxaabada ilaahay wuu maqalsiiyey iyo nebigaba dhawaaqii salka uu ku soo dhacay. wallaahi ayaan ku dhaartee waa la buuxin buu yidhi nebiga. say xaaladdu noqonaysaa walaalayaal? xaggee ku jirnaa? ma meesha jahannamana la ku buuxinaayaa? ma waxaan ku jirnaa dadka loo jannaynayaa? ma waxaan ku jirnaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa khayrkii wanaagga ka gaarayaa lama yaqaano. sidaa darteed waa inaan dadaalnaa, ilaahay ka baqnaa, daacada alla ku soconaa, cayaarta maanta ku jira layska daayaa. ilaahay agtiisa khayr fara badan baa la gaarayaa. war qiyaamaha marka la taga ahlu naarka waa la dul istaajinayaa naarta. ilaahay wuxuu yidhi walow taraa id wuqifuu cala annaar. war ka warrama maalinta ahlu naarka la soo aruuriyo, rag iyo dumarkoodii, jinni iyo insigoodii naarta korkeeda la istaajiyo. wa qaaluu yaa laytanaa, maxay dhahayaan? yaa laytanaa, shallaytadaynii yaay nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. nala celiyaa maanta adduunka. wallaahi aayaad ilaahay ma beeninayno. wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisaan raacaynaa, waan fulinaynaa, waan ku dadaalaynaa. yaa laytanaa, qiyaamaa la taagan yahay, lama jooga wakhtigeeda. jahannama korkeedaa la taagan yahay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. waa la tusiyey, waa loo jeedaa, waxay ku arkayaan il yaqiin ah. walow taraa id wuqifuu cala annaar faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. halaagayniyo dib maana loo celiyo, maa adduunkana la geeyo, maan xaafadihii deganeenna la geeyo, oo ilaahay aayaadkiisa aanaan beeninin oo aan rumayno. nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. maxay tamaninayaan? wanakuuna min almu'miniin, oo mu'miniinta aan ka mid noqono. bal badaa lahum, iska daa buu yidhi ilaahay, waxaa u daahiray, waxay arkeen, waxaa u soo muuqday. bal badaa lahum maa kaanuu yukhfuuna min qabl, wixii horay uga maqnaa oo uga qarsoonaa. walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu. xataa haddii la soo celiyo buu yidhi ilaahay waa beentood. waxay ku laaban lahaayeen xumaantii, waxay ku laaban lahaayeen heesii dhegaysigiisa, waxay ku laaban lahaayeen taariku salaadnimada, waxay ku laaban lahaayeen fisqigii xumaanta, waxay ku laaban lahaayeen wixii ilaahay u diiday. xataa jahannamaa la soo tusiyey, way arkeen, waxay yidhaahdeen halaag ayaa noo sugnaaday, rabbow gadaal noo celi, waan ku rumaynaynaa, aayadahaadana waa qaadanaynaa. markaasuu ilaah yidhi bal badaa lahum maa kaanuu yukhfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu. wixii laga reebay ku laaban lahaayeen. wa innahum lakaadibuun, waa beenaalayaal buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. ahlu naarka dulli baa ku dhacay, ahlu naarka cadaab iyo dhibaatay ku sugan yihiin. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, warhooy ayuha annaas, yaa ayuha annaas, abkuu, wardadow ooya. haddaadan ooyeyn xataa haddaad cadaab maqashaan fatabaakuu, is ooyiya buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waayo ahlu naarka way ooynayaan naarta dhexdeeda ilaa uu ka soo daato ilintooda, dhabannada iyo ildhaha hoostooda uu ku soo daato. ayadoo aad mooddo juduul, waxaad u malaysaa meel biyomareen oo kale ah, ilaa ilinta ay ka go'do buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wax allaala wixii ilmo ahaa, wax allaala wixii ilin ahaa ee ku jirtay ilaa ay dhammaato, ilaa ay go'do ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. ahlu naarku way ooyayaan cadaabka dhexdiisa, waxay ka soo daadanaya indhaha biyaha indhahooda ka soo qubta ilaa aad moodda waadi. markaa soconaya fayasiilu dam, dhiig baa ka soo daadanaya buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilintii markay dhammaato waxay ooynayaan waa dam, waxa ka soo daadanayo indhahooda ka soo baxaya waa dhiig buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. yursalu lbukaa, riwaayad kale, oohintaa lagu soo tuurayaa calaa ahli nnaar, way ooynayaan ilaa dumuucdu ay ka go'do. uma yabkuuna dam, dhiig ayay ooynayaan xataa ay dhiiggii uu noqdo wejiyaalkooda uu ku soo daato, oo xataa badnaanta uu ka qaba haddii sufuno iyo doomo la keena way ku socon lahaayeen buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. falyadxakuu qaliilan waliyabkuu kaiiran
جزاء بما كانوا يكسبون إن يرأي قسليان بو يري إلهي سبحانه وتعالى وإنت أدونك لجوغو وي أوين دونان أو وحي أوينيان إن فربضان وإنت نارت أي كجيران ما كالقو أيسو كالقو ملها مع ذلك أي أهل النار كعذابيهين ولا ليال قف كستو اسكبت بادي إن أديك كمد نقطة وحل قد ذا عملك صالحة قيامها مرك الله تجا النبي آدم بو إلهي أوعيا سبحانه وتعالى آدم وكسو صار بالليه هي ذرية ذا انت بعثذ الله قلت لك قري نارتا إمسا نارتا لقلينا يا كسو بحي عرورتا كسو بحي آذانها إن الله لا انت عرورتا انتي لو قلت لك إني أهل النار نقطة يا ربي وكم إلهي يوم يقول لي كنكي كستبا سقال بقل سقال إيا سقاشا لنع بحي وأهل النار بير إلهي سبحانه وتعالى هل باصوها رداية وأهل الجنة سبحانك يا إلهي معاسد ما أجيدان مياه xumaanta badatay la arki maayo miya khayrka ilaahay laga ordaayo looma jeeda miya masaajidada faaruqa la arki maayo miya goobaha cabayskaasay u buuxaan dadka loo jeeday maaya sidaa darteed buu ilaahay yiri kunkii kastaba aadamow 999 dhinacu bixi wa ahlun naar halka soo haraa janno loo dirayaa wadaalika yawm wa maalin buu yiri ilaahay yaj'alu alwildana shiba ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan maalin kunkii qofoodba hal qof janno uu ka galay walaalayaal kun qofood oo kasta oo taagan maalinta hal qofood badbaaday ee mutaqaana firdawsa aaday inta kale jahannamo ayagoo la jiidaya loo sii waday xaalku ma sahlana waa maalinta ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan waa maalinta ciyaalka dhibaatada iyo mashaakilkay asiibayso sidaa markay dhacday saxaabadii waxay sameeyeen ayaa la yiri oo qabarkaas soo gaaray qattu ru'uusahum madaxyaalkooday dabooleen camaamadihii ay haysteen bay madaxa ku dabooleen walahum khuniin ayagoo hooska ooynaya buu yiri xadiidka khuniinka waa oohinta qofka celinaya sawdka sanka ka soo baxa ayagoo sidaa ileen kun qofoodba hal baa janno galay war kun qofood 999 baa naar aaday saxaabadii way ooyeen intaa wixii ka dambeeya waxay dhaheen mata najaat yaa rasuul allah goormeen badbaadayna yaa badbaaday yaa janno aadaya oo jannada galaya rasuulkii ilaahayow intaa ka bacdi ayuu nebiga u bishaareeyey wuxuu yidhi abshiruu war bishaaraysta war waxaad ku bishaaraysataan khayr iyo wanaag mucdamkooda iyo inta badan waa ya'juuj iyo ma'juuj buu yidhi sala allahu calayhi wasalam bacdamay xaaladdu sidaa tahay qofka muslimka u aamin ma tihid war qofka iimaanka lahow mar walba dadaal war qofka iimaanka lahow rabbigaa ka cabsa subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaama marka la taga dadka waa la soo bixinayaa qubuurta jannadu waan soo tilmaannay yowma naxshuru almuttaqiina ila araxmaani wafdan ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا قبرغا marka laga soo bixiyo ayagoo wirdi ah ooman ayagoo xirxiran oo la jiidayo ayagoo dhibaataysan ayaa dhanka jahannama loo kaxeeyaa buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaba xaaladdu waa sida naartu waa meel dhibaato badan naartu waa meel aad iyo aad u murugyo badan rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa ku suufu istaagay maalin bay qoraxdii madoobaatay salaada ayuu mixraabka galay inuu umada dujiyo mar allaala markuu salaada galay ayuu horay u baxay sallallahu alayhi wasallam saxaabadii way la hor dhaqaaqeen cabaar kadib ayuu gadaal u soo gortay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dib bay u soo noqdeen ayagiina rasuulka markuu salaadii ka baxay ayay weydiiyeen sababta waan ku aragnay maxay tahay hor u socodkaagii iyo gadaal u soo socodkaagii rasuulku wuxuu yiri markaad aragteen in allaala inaan horay u soconayo jannadii baa horteeda la soo dhigay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam sida xaa'idkan iyo darbigan oo kala loo hor keenay ilaahay waa kari karaa rasuulka inuu jannada hortiisa keeno subhanahu wa ta'ala markaad aragteen inaan horay u dhaqaaqayo laamaha jannada miraheeda kamid ayaan damcay inaan soo qaado buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wallahi haday ii suura gali lahayd oo adduunka aan keeni lahaa ilaa qiyaamo ay ka dhacdo waad cuni lahaydeen mana dhamaan lahayn buu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa meeshana loogu talagalay inaan u shaqaysano waa halaanaheeda kamid waxa adduunka jooga oo dhan way cuni lahaayeen mana dhamaan lahayn raashina go'ay iyo dhibaato jirta iyo biil baa la waayay iyo mashaakil baa dhacay iyo saliid baa la waayay iyo ma jirteena ayda idinku filnaan lahayd ilaa maalinta qiyaamo ka warama qofku ilaahay dhixgeliye subhanahu wa ta'ala
markaadii aragteen inaan gadaal u soo noqonayo dib u soo guranayo buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaa horteeda la soo dhigay naartii buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. meel mugdi badan oo madow bay ahayd, meel aad u ololayso holxiisa ayay ahayd. rasuulka gadaal buu u soo noqday asagoo dhahaya acuudu billaahi min annaar, naartaan ilaahay ka magan galay. gadaal buu u soo socdaa sala allahu calayhi wasalam. meesha iska ilaaliya buu yidhi, war ka gabadoo alla cabsidiisa ku dadaala. wax kale haddaad weysaan fa bikalimati طayib, war hadal fiican xataa ilaahay u hormarsada, aad naarta uga badbaadiine. haddaad weysaan xataa sadaqa ku dadaala, walow bishiqi tamr, jeex timireed baa ahaaday uga gabada naarta. acuudu billaahi min annaar, acuudu billaahi min annaar. gadaal buu u soo socdaa, naartuu ilaahay ka magangelayaa. ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala, ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira. ilaahay kaafiriinta waa lacnaday, nacalad ayuu dusha ka saaray. ilaahay kaafiriinta naxariistiisa ayuu ka dhaqaajiyey. ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abadan. way ku dhex waarayaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. naartaa markay galaan way ku dhex waarayaan khaalidiina fiiha abadan laa yajiduuna waliyan walaa nasiira. wax u soo ciidamiya, wax u soo gurmada, wax u gargaaraa ma jira. waa goormee? yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar, maalin wejiyaalkooda naarta lagu gedgedinaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. ninka maqaayadda jooga hilibka marka uu dubayo, marna hoos buu geliyaa, marna saasuu u rogaa, mar saasuu u rogaa ayadoo shabaqii birta uu ku jiro, digaagadii ama hilibkii saasuu haddana u gediyaa, saasuu markaa u gedinayaa. wallaahi wejiyaalkeennaa lagu gedgedinayaa walaalayaal, haddaan diinta ilaahay ka leexano. maalin waayo lagu gedgedinayo wejiyaalkooda fi nnaar, yaquuluuna yaa laytana aطacna allah wa aطacna arasuul. halaageeniyow ilaahay maxaan u adeeci weynay leeyihiin, rasuulka maxaan u adeeci weyna. labadaasay codsanayaan. yaa laytana aطacna allah wa aطacna arasuul وqaaluu rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa. odayaal baan raacniy wa kubaraa'anaa, dad noo waaweynaa. maxay sameeyeen? hal maalinna ma dhihin salaada tukada, qaaraan bay naga qaadeen. hal maalinna ma dhihin ilaahay ka cabsada, dhibaatayna gaadhsiiyeen. rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa faadalluuna الsabiila, jidkii toosnaa bay naga dhumiyeen. rabbanaa aatihim ضicfayni min alcadaab, ilaahu cadaabka u laalaab ayaka. ilaahu ayagaa meeshana keenay u laalaab. inta annaga aad dusha naga saartay in debel ah oo ka laalaabsan ilaahayow saar. aatihim ضicfayni min alcadaab walcanhum lacnan kabiira. ilaahayow lacanad dusha ka saar. wakhtigeeda maa la joogaa, naarta lagula jiraa, waa laiskula jiraa walaalayaal. qofka muslimka waa inuu dadaalo, waa inuu ogaado ka cabsadaa naarta. fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara alatii. war qur'aankan oo kale haddaad keeni weysaan maba keeni kartaane, naar ka cabsada buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala. war naartaa ka cabsada, war naartaa lagu hurinaya dadka iyo dhagxaanta. wallaahi wax kalema loogu talagelin. waxaa loogu talagalay jasadkeenna haddii diinta lagu baabi'in waayo. waxaa loogu talagalay caqligeenna haddii diinta loo adeegsan waayo. waxaa loogu talagalay lugaheenna haddii qur'aanka iyo meesha lagu bartay masaajidada lagula socon waayo. sidaa darteed ayuu ilaahay tilmaamaya subxaanaه wa tacaala, qofka ahlu naarka ee naarta gala in ilaahay saa loogu gedgedinayo tilmaamaya wejigiisa. waa lagu dubayaa, waa lagu gedgadoominayaa. aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamay fakubkibuu fiiha hum walgaawuun. ayaga iyo intii dhumayba waa lagu afgembinayaa. naarta marka la gelinayo si istariixa socda ma jirto. naarta marka qofka la gelinayo afgembi baa loo seexinayaa. fakubkibuu fiiha hum walgaawuun وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. إبليس intii raacday dhammaantood waxay odhanayaan ayagoo doodaya, tallaahi in kunnaa lafii ضalaalin mubiin. ilaahay baan ku dhaarnay, baadi baan ku jirnay. id nusawiikum birabbi الcaalamiin wamaa adallanaa ila اlmujrimiin. nama dhumin ilaa mujrimiin maahana wax kale. maanta nooma sugnaanin sidiiq iyo saaxiib iyo xamiim noo murga. maanta wax noo qabanayaa ma jiro. ee falow hadday noo sugnaan lahayd oo ay noo sugnaan lahayd hal mar oo karasho ah oo noqosho ah, mu'miniintaan ka mid noqon lahayn. inna fii daalika la aaya. aayad baa ku sugana walaalayaal, ku cibro qaata.
والله نارتا إلهي سبحانه وتعالى دياري نارتا إلهي قفو كدل منا يا مالي qof kasta maanta waxa waa loo cadeeyo waa loo bayaaniyay wax walba ilaahay khayrkiisii wanaagiisii waa u sheegay aan noqona dad aqligooda naarta uga fakada aan noqona dad diinta inay raacaan khayrka iyo wanaaga ku dadaalaan ilaahay suu u badbaadiyay subhanahu wa ta'ala naarta saasa loogu afgambinaya ilaahay quraankiisa wuxuu ku tilmaamayaa in lagu tuuraayo ahlu naarka saasuu u taagan yahay marka ka bacdi ba qadfi lagu sameeyna inta saa loo qabtaa lagu tuuraa yawma yud'una ila naari jahannama da'a in tartiib loo galiyo ma jirtee waa lagu qadfayaa buu yiri ila subhanahu wa ta'ala wala qabana waa lagu tuurayaa yawma yud'una ila naari jahannama da'a إلهي محوت المامي سورة بلوغ إذا مركو كتارتي جبل طور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع عذابك إلهي ودعيا ما له من دافع واحد دفاعيا مجرور أثربات المانت عمر إنه فرس صارنا ابن خطاب أما حمار ومقلي سورة صلى الله أخرنا يا وطور ضربي كب لابانيسا إلهي عادل إلهي أود له هدو دارت مسهلنا والطور وكتاب مسطور جبل طور إي كتاب للسدريان كدارتي بوير إلهي في رق منشور وحلق السدري مقار أما ورقد لفذي وحكو دارنا يا إلهي سقفي بيتك معمور كأها وقرقي لعمري وحكو دارتي إلهي سقفي لكرقاضي والسقف المرفوع انت صدمركو إلهي كدارتي معيري إن عذاب ربك عذابك سلواقع ودعيا ما له من دافع وكدعي باليري رضي الله تعالى عنه وحكمين واجي فرسكي وكفر واي عذاب إلهي دعيا مسهلنا عذاب إلهي واقع واي واحفظ ضمأها عذاب إلهي مركو مقلي لواقع ما له من دافع wax difaacayo soo gurmanaya oo ciidana ama tol ama qabiil ma jiro inta markii la yiri Umar waa ka dhacay baa la yiri faraska saasa loo qaaday gurigiisa la geeyay dhowr maalmood baa lagu soo booqanay sidii qof xanuunsan oo jiran oo kale inna cadaaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' wax difaacayo ma jiro meeshii noocaasid buu ilaahay tilmaamay in qofka marka lagu tuuraayo bacdamay sidaa tahay walaalayaal aan aadiyad ilaahay uga cabsano aan qeyrkii wanaaga ku dadaalna cadaabka kaasa looga badbaadaa cadaabka ilaahay taasa marka looga fakanaya waa inaan jidaalka iyo dooda iyo muranka diinta alla lagu doodayo iska dayno sababtu waxay tahay arimaha naarta lagu galay kamid tahay alam tara ila alladhina yujadiluna في آيات الله كورن بو يري إلهي كو آياتك إلهي كو مرمايا يجادلون في آيات الله أن يصرفون ييهن الذين كذبوا بالكتاب وكبي كتاب كبينيي وبما أرسلنا به رسلنا وعن رسوشيني لصدرني فسوف يعلمون وحي دونان هسما يا نبو يري إلهي قذال دنبي لكن كأغان دونان فسوف يعلمون قرمي أغانيان إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله ما لنتاسي أغانا ينبو يري إلهي وما لنتي إذ الأغلال في أعناقهم أغلاش وحرقها ووين أهل نار كاللوغو تلقلي أيا قورها اللوغو حرى يابو يري إلهي إيا والسلاسل سلسلة ذوين يسحبون مركاسا اللوغو جيدا في النار نار تدحذي ذا انت كبعد والله هرنا يا ابو يري الى سبحانه وتعالى يسجرون محل الله دهيا ثم قيل لهم اين ما كنتم او واحد الهي ugu sharigeeli jirteen markii salaada leedin ku waco waxaad sugi jirteen meelaha saataagnaydeen fisqi baad ku jirteen waxaad ku jirteen kalaad waxyaaba noocaas oo kala ah aaway maxay idin anfaceen aaway maxay idin tareen qaalu dhallu anna way naga dhumeen bay leeyihiin بل ما بأهين بكو إلهي غيرك وحابدا ساسا الله إلي بيري إلى سبحانه وتعالى محال الله أرنا يا قيل ادخلوا أبواب جهنم قال وايه البابها جهنم ذا حالة صاص وايه ولا ليال نار توا نار وميل دبضا ودار دلي ودار آديات دبضا ودار إلهي وقلت لك قال قفكي العلم وايو ودين الله يعلم ويسو وأدونك كو كبرى وأدونك كو حد قدبا وأوامر إلهي كلا يحذي إني دجسو لغو عليو لغو عقابه واميلو إلهي وقلت لك قال سبحانه وتعالى سيدا درتد وحا مربل بول بوناكسن أو مرول بنا لقدبون وحي تهي إنان آدو دلالنا
inaan khayrka badsano, intaan adduunka joogno camalka ahlu naarka inaan iska ilaalino. waa laysi soo aruurinayaa maalinta qiyaamo. wa yowma yuxsharu acdaa'u llaahi ila annaar. xus buu yidhi ilaahay maalin cadowyaalka ilaahay yaa cadow ilaahay ah. cadow ilaahay ma taqaanaa? waa qofka amar ilaahay diida subxaana wa tacaala, cadowgiisii baa tahay. ilaahay wuxuu kuu diray ayaad samayn weysay, cadowgiisii baa tahay. ilaahay amarkuu kuu diraad ka leexatay, cadowgiisii baa tahay. maalin inta la soo aruuriyo ila annaari fahum yuusacuun, waa la horayaa. yuusaca waxaa loola jeedaa xoolaha marka ay darka u socdaan oo ay aad u fara badan yihiin way kala go'go'aan. markaasaa kuwa hore la istaajiyaa sida kuwa dambay u soo gaaraan, waa laysku istaajiyaa. maalin saasoo kale la yeelaayo oo la dhex yeelaya bani aadamkii oo ilaahay diintiisii diiday, ayagoo markaa laysku horaya xataa idaa maa jaa'uuhaa, markii meesha ay yimaadaan, shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanuu yacmaluun. waxaa ku markhaati kacaya indhahooda iyo dhagahooda iyo maqaarkooda buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. bima kaanuu yacmaluun, maxay odhanayaan? wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna, maxaad noogu markhaati kacdeen? war waa isla anagii, maqaarkii anigu igu yaalaa, war adigiina waa lagu cadaabayaa. wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu antaqana allah, ilaahay baa naga hadal siiyey leeyihiin. waxaan waa wax ilaahay wata subxaana wa tacaala, annagu iskama hadlin. laakiin antaqana allah aladii antaqa kulla shay, waa ilaaha wax kasta ka hadal siiye subxaana wa tacaala. ilaahaasaa annaga naga dhawaajiyey, ilaahaasaa halkaa mataqaanaa hadalka naga keenay. xaaladdu saasay u jirtaa. wamaa kuntum tastatiruuna, waad ahaan weydeen kuwa iska qariya inay idinku markhaati kacaan lugihiinna iyo gacmihiinna iyo maqaarkiina. xumaan baad markaas samayseen, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkii aad diiddeen iyo wixii aad samayseen waa laydinkugu markhaati kacay. maantana cadaabkaad gelaysaan. ee fa in yasbiruu fannaaru mahwan lahum, hadday sabraan naartay hooyanayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. hadday sabraanay aamusaan oo ay dhahaan waa isaga adkaysanaynaa cadaabka, oo ay dhahaan naarta waa isaga jiraynaa, ay aamusaan ay ku sabraan, fannaaru mahwan lahum, aydaa hooyad u ah. wain yastactibuu, hadday qayliyaan, ay mataqaana buuqaan, oy ooyaan, oy wax kasta sameeyaana wamaa hum min almuctabiin, laga aqbali maayo buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. aamusnaan ma jirto, lama aamusi kara. sababtu maxay tahay? lahum min jahannama mihaad, gogoshu waa jahannamo buu yidhi ilaahay. meesha lagu fadhiyaba waa dab, meesha la seexanayaba waa dab buu leeya ilah subxaana wa tacaala. meesha markaad istaagto madaxaagu qabanayo waa dab ololaaya, dhinacyaalkaagii hareerahaada waa wada dab. saa darteed meel lagu sabri karoo la aamusi kara ma aha. lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gaash, korna waxaa ka daboolan olol buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. kor hadday fiiriyaan waa naar, dhinac hadday fiiriyaan waa cadaab, dhinac hadday fiiriyaan waa naar, gogoshii waa naar holcaysaa. see loo aamusayaa? say dadka ahlu naarka u aamusayaan? aamusnaan ma jiro. wahum yastariquuna fiiha, way ku dhex qaylinayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. kii lagu tuuraba wuu qaylin, kii lagu tuura way ku dhex qaylinayaan. wahum yastariquuna fiiha rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan, alloo naga bixi camal fiicanaan soo qabanaynaa. dhihi maayaan adduun baan meel soo dhiganaynaa, dhihi maayaan haddaan waxyaabo kala samaysanaynaa, dhihi maayaan bengi baan wax dhiganaynaa. ilaahu hal mar ma naga bixin kartaa bay leeyihiin. nacmal saalixan اladii kunaa nacmal, way qirayaan camal xun inay qabteen, way qirayaan inay camal fiican samaynin, way qirayaan ahlu naarka. markaasay leeyihiin rabbow naga bixi nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal, kii aan camal qabanay waxaan ahayn. maxaa loogu jawaabayaa? abalam nucamirkum, miyaanan idin cimri siinin? maa yatadakaru fiihi man tadakar, qof waana qaadanaya intuu waana qaato. wallaahi intaan hadda adduunka joognay waa in nagu filan, waa in aan wax ku qaadan karno, waa inaan ilaahay ku caabudi karno, waa in ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xasuusan karno, waa in xumaantii naga dhacday aan ku soo laaban karno. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar. muxaqiqiinta gobol baa waxay yidhaahdeen awalam nucamirkum waxaa loola jeedaa 18 sano, ee ma aha 100 iyo 120 ninka markaa gaara. 18 sana, 18 sana loola jeedaa. qolaa tiri waa 40, 60 qolaa gaarsiisay. say noqotaba awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar. war nin waana qaadan kara, wuxuu ku waana qaata mayaana la siinin. laakiin waxaan ku dhammaynay cayaar, waxaan ku dhammaynay dariiq istaag, waxaan ku dhammaynay fisqi, waxaan ku dhammaynay ciyaar iyo waxaan qiimo lahayn. cimriga waa laysi su'aalayaa.
haddii laga faa'iidaystana janna la gelayaa, haddii laga faa'iidaysan waayana ilaahay cadaab buu ugu talagalay dadka subxaana wa tacaala. weli waxaan ku jirnay ahlu naarka si saani ah inaan naarta loo gelinaynin ee si dulli ah loo gelinaayo. muxuu ilaahay aayad kale ku yidhi alqiyaa fii jahannama, qabtee ku tuura buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. alqiyaa fii jahannama yaa lagu tuurayaa kulla kafaarin caniid, mid kastoo kufriniman badnaa haddana madaxa kaa. aawa dadkii la yidhi salaada tukada ma adigaa nagu leh ku jawaabay caniid, madax adayg. aawa dadkii la yidhi war ilaahay ka cabsada, ilaahay maad naga xigtaa dadkii ku jawaabay aaway. qabta buu leeyahay ilaahay alqiyaa fii jahannama kulla kafaarin caniid mannaacin lilkhayr, khayr mancin badnaa, haddana xadgudub badnaa, haddana muriib ahaa oo shaki badnaa. الذي جعل مع الله إلها آخر كإلهي معيسى إله كلا سميي أو شركي سميي أو إلهي كليجي كفل نواي أو ربي أو إلهي أو الرحمن أو أفكي سلقواي أو قبور كجرة أو إلهي غيرك وعررينا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. عذابك أذكر ذا بوير إلى سبحانه وتعالى. cadaabka kiisa ugu xanuunka badan markaa ku tuura si saxan ah oo wanaagsan oo soo dhaweyn ah maba jirto maamuus ah, waa la ganaa, waa la tuuraa. ilaahay aayad kale muxuu ku tilmaamay yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim, waa la jiidayaa gobolna inta malaa'igta silsiladaha loo dhibay ay haystaan. yuu ilaahay tilmaamay uu yidhi maalin yowma yusxabuuna, maalin lagu jiidaayo naarta calaa wujuuhihim, maxaa loo dhahayaa duuquu masa saqara taabashadeeda dhadhamiya. aayad kale maxay ahayd yucrafu almujrimuuna bisiimaahum fayu'khadu biاlnawaasi wاlaqdaam. waa la aqoonsanaa mujrimiinta, mama la su'aalayo sida aayadda ka horaysay ee tilmaantay fayowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaan, la weydiin maayo. sababtu maxay tahay looma baahnaba. yucrafu almujrimuuna bisiimaahum, calaamadaha lagu aqoonsanaa buu yidhi ilaahay. fayuuqadu binnawaasi, foodaa laga soo qabanayaa iyo walaqdaam. mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa inta fooda laga qabto yaa sada gadaal loo soo jebinayaa, markaasaa gomadda lagu xiraa iyo cirbaha, markaasaa naarta lagu tuurayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. waciyaadu billaah. walaalayaal, xaaladdu xaalad sahlan ma aha. ahlu naarka maalinta meesha ay arkaan, ahlu naarka waa maalinta ilaahay uu ku tilmaamay mil'ul ardi dahab haddii la siiyo, arlada mugeed waa adduunka oo dhan arla ilaahay abuuray, mugii oo dahaba haddii la siiyo wallaahi meel ma dhiganaayo. gabadhu meel ma dhiganaysa, aroos ma u qaadanayso, laakiin laftadoodii way isku furan lahaayeen buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. ilaa xadiis uu tilmaamay nebiga, ahlu naar baa la keenayaa maalinta qiyaamo. ilaah wuxuu ku odhanayaa haddaan ku siiyo arlada muggeed oo dahab ah, cadaabka ma isaga furan lahayd? haa buu leeyahay yaa rabbi. mayuu ilaahay leeyahay arrintaa wax ka yar oo ka fudud ayaan kaa dalbaday, wa anta calaa sulbi aadam, adoo dhabarka aadam ku jira. maxay ahayd? inaad i caabudood waxna ii shariig yeel. halaha keliyaan kaa rabay buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. in arla muggeed lagu siiyo maanta oo dahab ah ood isku furato wax soconayaa ma aha. wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara, waa la quminayaa jahannama ayaa loo quminayaa intii ilaahay beenisay oo awaamir ilaahay diiday. wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara xataa idaa jaa'uuha, markay tagaan oo cadaabkii jahannama afkeeda ay joogaan oo meesha xaaladeedu ay tahay buu ilaahay yidhi futixat abwaabuhaa, markaasaa albaabeedii loo furayaa. malaa'igta meesha joogta way hadlaysaa. waqaala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ورمحا إذن كنا عيبا لليهي ميس الرسول إذن إيمان، وروح ميشان إذن كجديا ما إذن إيمان ميا، وروح إذن حتى النار جرتي إسكا إلالية. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. هذا إليهن waynoo yimaadeen, laakiin waxaa nagu dul rumowday ilaahay kelimadiisa subxaana wa tacaala. sidaa miyaa xaaladda? waa loo banaynayaa. qiila dkhuluu abwaaba jahannama, gala waayihi albaabaha jahannamada. saasaa markaa loo odhanayaa. waa dadka ahlu naarka ah. soo dhoweyn ma laha, marxabays ma laha, way kala horhoreeyaan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. haada waina liلطaaqiina la shara ma'aab. طaaqiinta waxay leeyihin waa dadka xadgudbay, ma'aab iyo meel loo noqdo meesha u shar badan.
adduunkii dhibka badnaa bay joogeen maalin way gaajoodeen maalin way dhibtoodeen maalin dhibaatay galeen maalin way kurboodeen maalin way xanuunsadeen maalin way socon waayeen adduunkii saas ahaa intay ku dhammaysteen ayaa haddana ilaahay uu yidhi la shara ma'aab marjic xun ayaa markaa u sugnaaday la shara ma'aab maxay tahay jahannama yaslawnaha jahannamay gelayaan fabi'sa almihaad gogol aydaa u baasle haadaa falyaduuquuh xamiimun waghasaaq waxay meesha ku dhadhaminayaan xamiim waa biyo kulul ghasaaq waa dheecaanka ahlu naarka buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo hilibka waan aragnay marka la dubaa dheecaan baa ka baxa adigana hilibkaagii marka naarta la geliyo oo saa dheecaanka uga daataa ka kala cabaya kii kaa koreeyaad ka cabaysaa haadaa falyaduuquuh xamiimun waghasaaq wa aakharu min shaklihi aswaaj mid kalea jiro nooc kale ah oo noocyo ah cadaabyo kala duduwan ah xaaladaasuu ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa tacaala mid kale ayaa jira wa aakharu min shaklihi aswaaj marka ciidan ay lagu rido koox kalaa lagu tuurayaa haadaa fawjun muqtaximun macakum kuwani waa kuwo kalea la leeyahay waa idinla soo xidhiiriyeen naarta qaaluu laa marxaba bihim bay leeyihiin haadaa fawjun muqtaximun macakum laa marxaban bihim wax soo dhowaana uma sugnaanin innahum saaluu naar bay soo galeen maxaan ku soo dhowaynaa ma buskudaa la siiyaa ma sharaab baan ku soo dhowaynaa ma biyo qabowaa looga soo qabtaa dukaamada waa maya wax marxab ah iyo soo dhowayn ma laha sababtu waxay tahay waxay yimaadeen naar qaaluu bal antum laa marxaba bikum waa iscaynayaan idinka xataa wax soo dhowaasha idinma sugnaanin antum qadamtumuuhu lanaa idinkaa nooga soo hormaray فبئس القرار ساسي مركا إسليهين حتى إلهي آيات كلا أوكت المامي كلما دخلت أمة مركز نارت أمد لقليو أو كوح لقليو لعنت أختها ولا شد بلعنة ريسا وردل هذه كود أم حماش إذن كيني وردل إذن كان هذه كود أم أي حالة تهي وإسكر راح يصلى أينو ماشي أي كجيرين أو نارت يعدنا وحيكون نقونيسا مملا معناها عريري ساسي مركا كو أهانيسا مركزو إلهي مركز أو جميعا لقريدو لعنت أختها حتى إذن داركوا فيها إلا إذ ضمانتهم ماشا كوضا هليلان مركاسا كوي لباديي إيا كوي وحباديي لبضبا أي مركا إسلا هضليان هضبا ولا ليان عذاب كاسا نغهوريا ماشا سو إلهي دياري سبحانه وتعالى لو ما ديارين لعقتا إيو فردها إيو ضميرها إيو وحيابها كلي جن إي إنسي بالو دياري جن إي إنسي هدي لو دياري وحا لغا ربا مركسا عدا وحي لغا بلاوضو فرحب إي أرض نارتا لغا أرضو عذابك إلهي لغا قبضو عذابك إلهي لغا مغانقلو عذابك إلهي وسيلة كستوكو قارسينا إنا تسكديسو ما أنت وح الله لوحي عذابك إلهي كابد باذنايا إنا المركة إسكا إلا لسوى شيء لغا ممار مانها ساعد قيام وإيماني سيا لبينيني هدي لبيني وحيابها نارتا لغو قليكا متهي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ويبيني ساعة قيام إلي جرتي أغان وايين وأشقين وايين عمل في عم بيقوان وايين دينت الله يكلحذين سادرتد بو إلهي بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مركي أركتو نارتو يفرحيسا معيكو فرح سنتهي دادك أيمت معيكو فرح سنتهي عصادي معيكو فرح سنتهي تارك الصلاة ماشا سي جوغان ولا اسكو حرحري وعلى لوحي جلباب كتغو الضمر ماشا سي ودا جوغان ويسكو حريين وعلى لوحي أهل حنقها ماشا سي ودا جوغان وعلى لوحي حاران حنقها ساسا لوكا الحرحرية وايو إله بقرنا سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأسواجهم أن وعدوا ذا الله سوق المية مر الله لمركي نارتا أركتو حتى رسولك وحوت المامي إن إدتك كسود هذي نارتي أي أيضا إسعنتي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم وي إسعنتي معنى وي ضررتي ويسوغي ويسي دومركي دينتا ألا ديدي إيراقي ديدي انت يسوغي ويسا أيضا اسكسو نقطي مركاسي إلهي الله هذا الشيء يا ربي أكل بعضي بعضا إلهي أنا إسعني بيتري نارتي ربي أنا إسعني معي سوغيسي أنا جاي نسوغيسي والعصاد بيسوغيسي وردضاعة ألا ديدي سوغيسي ورقف شركي إيو قال لما أدونك كو عمي سوغيسي ورقف إلهي وحد لغا كري وايي سوغيسي مركاسي سوغيسي مركاسي إسعنتي نارتي إلهي لبا نفسه شو أبني سبحانه وتعالى لبا مر أما إنيها وقاضته ومر أي شتها نفستي مر سيفك أي نفسته كليلك ضرن أركيسان وجيلالك ويصون نفستي برسولك صلى الله عليه وسلم برف لغا مهلا مقالة مالنتها ودباته حقين لقفك اللي قرد أوكيهلي كراه لا يذوقون فيها بردا
walaa sharaaban qabow iyo wax la cabo labadaba mala buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahu maxaadna siinaysaa? ilaahay nooma kasta gelitaankeeda. war qof walbow ka carar, war qof walbow ilaahay ka magan gal. war rasuulka waad u jeedda mixraabkuu gadaal oga soo baxay, acuudu billaahi min annaar, waa oraahdiisa. ilaahu naar baan kaa magan galay, rabbiyow cadaabka iga kori. haddii meesha la galo qabow iyo sharaab la waayo maxaa la cabayaa? ilaa xamiiman wagasaaqan, biyo kulul iyo dheecaan naareed buu yidhi ilah subxaanahu wa tacaala. labadaasaa meesha lagu cabaa. war wax kale ma yaalo, war raashin kale ma laha, war sharaab kale ma laha, war sadiid iyo qurun buu ilaahay aayad kale ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala. waxaa la cabsinayaa min maa'in sadiid, biyo qurun ah, yatajaracahu wuu kabanayaa, walaa yakaadu yasiiquhu, ma qurqurin karo. sharaab fiican oo sonkor lagu daray oo baraf leh marka laguu keena saad u cabtaa ma jirta buu yidhi ilah subxaanahu wa tacaala. meesha yatajaracahu waa dhunjinayaa tartiib, ileen oonkiina waa hayaa, xeraadkii waa hayaa, naartii waa ku jiraa, wax u soo gurmanaya ma laha. xataa waxaa dhacaysa inay ahlu jannaha u qayliyaan oo ay dhahaan an afiiduu calayha min almaa, war waa gubanaya biyo kor nooga soo daadiya. an afiiduu calayna min almaa, war biyana sii ahlu jannay, war maxaan ku jirna ma ogidin miya? war ahlu jannay waa rafaadnay, war ahlu jannay meesha meel fiican ma aha, war ahlu jannay waad nimcaysateen. an afiiduu calayna min almaa aw mima razaqakum allah. maxaa loogu jawaabayaa? ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin. wallah adan carabka saarin baa la leeyahay. imisaa laydin wacdinaya, imisaa khayr laydiin sheegay. war meequu mu'adin xaya cala asalaa xaya cala alfalaax idin lahaa oo dhinacaad aad u socoteen. war meeqaa dad xaq iyo wanaag idiin sheegood orodeen. ina allaha xaramahumaa, ilaahay labadaa wuu ka xaaraantinimeeyey cala naarta dadka ku jira. xaramahumaa cala alkaafiriin, waa kaafiriinta naarta markaa ku jirtaa. bacdami xaaladdu sidaa tahay walaalayaal hala dadaalo. naartu waa meel noocaas ah, naartu waa meel adag, naartu waa meel dhib badan. maalinta qiyaama intaysan naarta gelin ahlu naarka, markay bannaanka qiyaamaha isugu yimaadaan oo meesha la wada taagan yahay, ilaahay mar allaala markaad ay u baahdaan har iyo waxyaaba in la siiyo, har baa loo tilmaamayaa. ilaahay muxuu yidhi? inطaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun, ordaha aada wixii aad beeninayseen. inطaliquu ilaa dillin, hoos u taga oo dii ثalaaثi shucab, saddex qayb u saaxiiba buu dhahay ilah subxaanaه wa tacaala. laa daliilin walaa yugnii min allahab, har ma aha, lahabkana ka deeqi maayo. ilaahay aayad kale buu ku tilmaamay wadilin min yaxmuum, waa har qaaca. markay istaagaan meeshay kayrka heli lahaayeen qaac buu ku kixinayaaba. waa min yaxmuum laa baaridin walaa kariim, mana qaboobo mana fiicna buu dhahay ilaahay subxaanaه wa tacaala. ahlu naar baa intaa iska leh. ahlu naar buu ilaahay saa ugu talagelayaa subxaanaه wa tacaala. idan idaa ra'athum, markay ka aragta min makaanin baciid, samicuu lahaa tagayudan wazafiir, way qaylinaysaa naarta. waxaa ka soo baxaya cod, waxaa ka soo baxaya guux. sababtu waxay tahay way soo istiqbaalinaysaa, way soo dhowaynaysaa. dadkeedii ayaa u yimid. samicuu lahaa tagayudan wazafiira, waidaa ulquu minhaa makaanan dayiqan, marka looga tuuro makaan ciriiri ah, dacow hunaalika hubuuraa, halaag bay u wacanayaan. waa halaagsanay, waa qaylinayaan buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala. loo calool jilci maayo. laa tadcu اlyawma hubuuran waaxidan, war hal halaag ha u wacanina buu ilah yidhi subxaanaه wa tacaala. wadcuu hubuuran kaiira, halaag badan u wacda. war hadduu wax idin taraayo, war maalintaa hadduu halaag loo wacdo ay wax tarayso, war maalintaa maalin ay wax taraysa ma lahane. laa tadcu اlyawma hubuuran waaxidan, wadcuu hubuuran kaiira. oo wacda halaag fara badan buu ilah leeyahy subxaanaه wa tacaala. qayla dhaamiya, waxaad doontaan sheega, waxaad doontaan sameeya. maalintaa waa maalinta ilaahay uu yidhi wayowma yacadu الظaalimu calىa yadayhi. maalinta adduunka hal gacan baa la qaniinaa markuu qofku qoomamaynaayo. maalintaa labadu isugu darayaa. yacadu الظaalimu calىa yaday yaquulu yaa laytani اtaqadtu maca rasuuli sabiila. yaa waylata laytanii, halaagaygii shalaytadaydee, maxaan hebel saaxiib uga dhigtay, maxaan fulaan u raacay, meel xun buu ii waday, asagaa iga celiya cishaa'iga, asaa ii wacay oo meel daran oo baasa igey. labada gacmood buu qaniina, labada gacmood buu qaniinayaa buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala. wayowma yacadu الظaalimu calىa yaday yaquulu yaa laytani اtakhadtu maca rasuuli sabiila. intaasoo dhan waxay wada tilmaamayaan ilaahay iyo rasuulkiisa jidkooda inay raaci lahaayeen. waddo kale oo
lagu libaanaya ma jiro waddo kaloo khayr iyo janno lagu gaaraa ma laha waa labadaa waddo markaasuu ilaah yidhi wuxuu odhanayaa halaagaygiiyow maxaan saaxiib hebel uga dhigtay laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii dikrigii wacdigii waanadii khayrkii qur'aankii tawxiidkii wixii dhan buu iga dhumiyey waqti u yimid wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduulan shayطaanku insaanku waa khiyaanaa waa dhagrayaa waxuu kaaga dhigaya wax kale war ha dukanin salaad ma fiicna ku dhihi maayo laakiin muxuu ku leeyahay war hadhow baad tukanaysaayo soo bax markaad soo laabato cishaa'i 6 sac gaarayna qof tukadaa maba jiraba wuu caajisayaa wuu seexanayaa waxyaabo kalu mutaqaanaa gelayaa saa darteed shayطaanku uu kaaga dhigaa khaduul waa khiyaano badne ilaa ilaahay uu yidhi subxaanaه wa tacaala waman yacshu can dikri الraxmaan nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin qofkii ka jeesta raxmaanka dikrigiisa shayطaan baan la xiriirinaynaa qariin buu u noqonaa saaxiib ayuu u noqonayaa muxuu samaynayaa saaxiib fiican ma aha صaaxiib wanaagaaga ka talinaya ma aha wainahum layasuduunahum can الsabiil wayaxsabuuna anahum muhtaduun wuxuu ka leexinaa jidkii toosnaa markaasuu isku malaya inuu hanuunsan yahay nin fiican nin khayr leh nin sharaf leh nin mataqaanaa khayr iyo wanaag ku socda wayaxsabuuna anahum muhtaduun xataa idaa jaaءuuna ilaa inuu yimaadaan buu yidhi ilaahay qaala yaa layt mar kasta halaag bay sheeganayaan mar kasta qoomamay u wacanayaan wuxuu odhanayaa halaagaygiiyow war shaydaanow maxaa dhacay war maanta waan halaagsamee ani iyo adiga maan kala fogaano xataa idaa jaa'ana qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayn weliba saaxiib dhow ma aha mid mataqaanaa cadceedda meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacda maan kala jirsano fa bi'sa alqariin wax lala saaxiiba adiga oo xune walan yanfacakum alyawm idin anfici maysa buu yidhi ilaahay id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun cadaabkaad wadaagaysaan labadiinaba cadaabkaad gelaysaan buu dhahay ilaahay subxaanaه wa tacaala haddaba dadka ilaahay diiday subxaanaه wa tacaala jahannamadaa buu ilaahay ugu talagalay naartaasuu ilaahay ugu talagalay ilaahay asagoo mar kale noo tilmaamaya wuxuu yidhi jahannamadaa waliladiina kafaruu dadka kufriyey birabbihim cadaabu jahannam wa bi'sa almasiir idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur takaadu tamayazu waxay u dhowaatay jahannamo inay go'go'do min alghayb carro ay u qabta darteed ciilka ay noo qabtay u dhowaatay jahannamo inay la go'go'do buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ciilku muxuu yahay ilaahay baa la caasiyey subxaana wa tacala maxay u caroon weysay ilaahay baa la caynaya subxaana wa tacaala maxay u caroon weysay risqigiisaa la cunayaa macaasina waa loo adeegsanayaa maxay jahannamo u caroon weysay markaasuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala mar allaala markii jahannamo saa loogu tuuro idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur takaadu tamayazu min alghayb kulamaa ulqiya fiiha fawj mar kastoo jamiica lagu ridaba sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadiir war miyuusan nadiir idin imaanin qaaluu balaa haa qad jaaءanaa nadiir waa noo yimid fakadabnaa waa beeninay waxaan dhahnay wuxuu ilaahay soo dejiyey ma jirana halkay qoomamaynayaan maxay odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi الsaciir wallaahi haddaan caqli lahaan lahayn oo diintan ku garaad qaadan lahayn oo dad amarka ilaahay fuliye aan noqon lahayn low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi الsaciir waxay taraysa ma laha faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi الsaciir asxaabu الsaciir dheerayn iyo halaag baa u sugnaaday buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka mujrimiinta ah cadaab jahannamo ayay leeyihiin wayna ku dhex waarayaan buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun laa yufataru laga nusqaamin maayo meel qabow lagaaga furo iyo meel neecaw aad ka hesho iyo meel lagaaga raaxaynaya ma laha wahum fiihi mublisuun way ku dhex quusanayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala markay galaan oo ay kuleelkii arkaan oo wax u gargaaray ay waayaan maalig bay la soo hadlayaan yaa maalig liyaqdi calaynaa rabbuk maaligow ilaahay noo tuug ilaahay hana xukmiyo janno xataa marabni hana la dila bes geeri bay codsanayaan wallahi ahlu naarka xural cayntaa meesha ku jirta ee raaxada badan ahlu jannaha raashinka loo diyaariyey khamradaa saafidee la cabaayo naciimadaa ballaaran ninkii yidhi ka warrama ilaahayow idil keliya wax kala ma rabe wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaban carro le maan ahaado ilaahu ciiddaas iga dhig buu leeyahay wax xataa aan raba ma laha xural caynna ma rabo jannana ma rabo mar un cadaabka ilaahayow iga khafiifi wanaadow yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuk rabbigaa hana xukmiyo noogu tag
adaa bal maanta bannaanka taagan oo ilaahay u dhow oo ilaahay nagala hadli karee liyaqdi calaynaa rabbuka 40 sano ka aamusnaana baa la yidhi jawaab buu u soo celinayaa jawaabtuu u soo celinaya 40 baa ha ka aamusnaadee albaabada loo ballaqay soo bax la dhaha waxbay anfici lahayd qaala inakum maakithuuna meeshaad ku waaraysaan ood joogaysaan ood ku sugnaanaysaan baa loogu jawaabayaa walaalayaal ahlunaarka ahlunaar wamaa adraakum annaar naartu waa dhib badan tahay naartaan aad wax ku karsanaysaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam waa naarta jahannamo 70 gobol ka mid ah oo laga keenay waa laga soo qaaday 70 ayadoo ah yaa qayb laga soo qaaday markaasaa idinka laydin keenay riwaayada baa waxay tilmaamaan in badad la soo marsiiyey saad idinka wax ugu karsataan waa naarta adduunka waa gobol ka mid ah 70 juzi oo naarta jahannama ka mid ah maalinta qiyaamaha waxay dhaheen saxaabadu rasuulkii ilaahay oo tan baaba ku filanba haddiiba ahlu naarka 69 kale laga daayo midaan adduunkaaba haddiina la geliyo aan loo adkaysan karin foornada ma aragteen rootiga lagu dubo meesha dabka wax lagu kariyo afara'aytum an-naara allatii tuuruun war ka warrama dabkaad wax ku karsanaysaan buu dhahay ilaahay war dabkaad hurinaysaan ka warrama a antum ansha'tum shajarataha am naxnu almunshi'uun naxnu jacalnaaha tadkira waxaan uga dhignay dadka xusuusasho jahannamo lagu xasuusto wax kale looma keenin naxnu jacalnaaha tadkiratan wa mataacan lilmuqwiin dadka musaafiriinta inay raaxo u noqoto markay dhaxmoodaan inay isku kululeeyaan idinka inaad wax ku karsataan jahannamana aad ku xasuusataan xabad dab ah oo adduunka yaala saa u qabo haddii saas aad u jajabisay waxba kaa tari weyso jahannamo wax kaa tari maysay waxaad doonta samee laakiin haddaad tuurto ood cararto ood qayliso oo gacantu isbeddesho oo dhib yimaado oo rafaadku uu bato oo daawo laguu doono jahannamaa jirtay haddaba iska ilaali tan baa ku filan bay dhaheen saxaabada rasuulku wuxuu yidhi intii kalaa lagu soo darayaa maalinta qiyaamana midii adduunka inta la soo celiyaa dhammaan kaafiriinta lagu cadaabayaa gaaladaasaa loogu cadaabayaa ilaa ilaahay uu yidhi xaaladoodaa sidaa ah innakum maakithuun idinka waad ku dhex waaraysaan oo meesha ayaad joogaysaan meesha ayaad ku jiraysaan cibaaduraxmaan caqligooda waxaa ka mid ah waaladiina yaquuluuna rabbana sarif cannaa cadaaba jahannama ina cadaabaha kaana garaama way garteen inuu cadaab jiro way garteen in layscadaabaayo way ogaadeen in layscadaabaya camal fiican bay qabteen way ku kaaftoomi waayeen ilaahay bay toos u toogeen subxaana wa tacaala rabbana asrif cannaa cadaaba jahannama ilaahu cadaabka jahannama naga leexi ina cadaabaha kaana garaama cadaabkeeda waa daa'im cadaabkeeda waa mid mustaqira cadaabkeeda waa midaan kala go' lahayn cadaabkeeda waa mid joogto ah cadaabkeeda waa mid hal mar xataa aan lagu dhayn maanta bannaanka u baxa wax yaroo habaa soo qaata ma jirto sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddaba cadaabka waaladiisu waa sidaa naartu saasay u dhib badan tahay naartu dhibaatadaa bay leedahay taa waa cibaaduraxmaan yaa soo haray dadka ulul albaabka ah ulul albaab maxay leeyihiin ayagana rabbanaa inaka man tudkhil الnaara faqad akhzaytahu wamaa lilظaalimiina min ansaar ilaahayow qofkaad naar geliso waad hoojisay waa duloobay rafaad ayuu arkay dhaalimiintana wax u gargaaraa markaa ma jiro dhaalimiinta wax u nasrinayaa ma laha dhaalimiinta wax u qabanayaa ma laha dhaalimiinta wax u maciinaa ma laha ee qofka muslimkow dadaal ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baq maanta intaan adduunka joognay nala gudboon tahay jidka fiican inaan marno wallaahi maanta intaan adduunka joognay nala fiican tahay dadka ahlu naarkaa waddadooda inaan ka leexano qiyaamo markay tagaan waxay odhanayaan hal min sabiil khuruuj iyo noqosho wadda ma u helaynaa meel aan ku laabano ma helaynaa wahum yastariquuna fiiha rabbana akhrijnaa ilaahu naga bixi waayaagaa iyo khayrka iyo macnaha dhibaatadan iyo rafaadkan iyo naartan aan ku jirno mar allaala marka maalinta qiyaamo buunka la yeeriyo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab sheegasho ma jiro wax is-su'aalahna markaa ma laha waa la ismiisaamayaa miisaan baa lagu kala baxayaa faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun miisaankaagii xasanaadka ma cuslaaday khayr badan ma lagaa helay ilaahay ma ka cabsatay salaadaadii ma hagaagtay qof fiican ma noqotay carabkaagii adinkaagii ma ilaalisay muslimiinta dhibka ma ka daysay khayrkii wanaagga ma ku socotay hum lmuflixuun
yaa soo qaadanay waman khafad mawaasiinuhu qofka miisaankiisa xasanaadka khafiifo faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun saasaa loo kala baxayaa buu yidhi ila subxaana wa tacaala talfaxu wujuuhahum annaar wejiyaalkooda naartaa feenanaysa way cunaysaa buu dha ilaah subxaana wa tacaala wahum fiiha kaalixuun meeshaasay ku dandaran yihiin ay dhibaato ku haysataa oo mashaakil ay ku jiraan cid u og ma laha cid u soo maciinaysa ma laha wahum fiiha kaalixuun su'aal baa la weydiinayaa alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun aayaadkaygii ma laydinku kor akriyey oo ma beeniseen jawaabtu maxay noqonaysaa rabbanaa halabat calayna shiqawatunaa ilaahayow shiqwadeenna iyo madax adeegeenna iyo kibirkeena naga qaalib noqday waa sax waana lagu akriyey waana loo sheegay laakiin rabbanaa halabat calayna shiqwatunaa wa kunna qowman daaliin rabbanaa akhrijnaa minhaa ilaahayow naga bixi fain cudnaa fainaa aalimuun haddaan u noqono mar dambe anagaa aalimiin ahe mar bannaanka nagey ilaahayow naga bixi fain cudnaa fainaa aalimuun jawaabta ilaah maxay noqonaysaa ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun hoos gala naarta mar dambe hayla hadlina buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilahay haddii hadalkeena diida yaa nala hadlaaya ilaahay hadduu noo naxariisan waay yaa naxariisna siinaaya war ilaahay jannadiisa haddaan ka qadno yaa janno leh oo jannona siin kara war cadaabka haddaan galna yaa naga soo saari karoon ilaahay ahayn subxaana wa tacaala maxaa dhacay caasiyitaanka maxaa diidmada ilaahay kalifay subxaana wa tacaala war ummaddii maanta maxay uga ordayaan ilaahay qur'aankiisa iyo diinkiisa iyo amarkiisa iyo masaajidadiisa iyo meelaha khayrka badanee ilaahay jannada in lagu helaayo oo ku tilmaamay maxaa ku badnaysiiye dadka goobaha xumaanta famaa asbarahum cala annaar naarta maxaa ku sabar badnaysiiyey ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala manaaraa loo safri karaa manaara ah meel loo sabro manaara ah meel loo dulqaato oo la dhex joogo xaaladdu waa maya jawaabtu waa maya bacdamay sidaa tahay walaalayaal khayrka iyo wanaagga ha lagu dadaalo daacada ilaahayna aad ha loo badiyo naartaa ayaa la ii furay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay inay ku jireen ama ay ugu badan yihiin dadka mutakabiriinta ee kibirka badan dadka manaacee khayrka iyo waxyaabaha manciya waxaan ku arkay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa meesha ku jirayna inay dumarka ugu badnaayeen sala allahu calayhi wasalam maxaa dhacay waa cisyaanka faraha badan waa mukhaalafada diinta ay dhinac maraan waa waxyaabaha faraha badan ee lacanadee ka soo baxda waa ixsaanka iyo wanaagga ay qariyaan waa kufriga ay nimcada loo qabto ku kufriyaan waa arrimooyin fara badan ayuu ilaahay ku tilmaamayaa nebigiisa waa qaawanaanta ay wanaag magaalada ku maraan waa waxyaabaha ilaahay ka xaaraantilmay ay u badan yihiin sidaa darteed war dumarow dadaala ilaahiinana ka baqa buu yidhi nebiga intuu dul istaagay war istikfaarta badiya sadaqadana badiya buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam saad uga badbaadaan cadaabka saad uga fakataan cadaabka sida ilaahay khayr iyo wanaag idiin siiyo idinkuna si fiican u dadaala dumarku qayb baa loogu talagalay diinta haddii layskaalmaysto oo walmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar haddii la noqdo ilaahay wuxuu ku gebagabay ulaa'ika sayarxamuhum allah ilahay wuu u naxariista subxaana wa tacaala laakiin haddii la kala leexdo oo macruuf laisamri waayo oo munkar layska reebi waayo oo salaaddii la hagaajin waayo oo khayrkii wanaagga lagu dadaali waayo idan waxay noqonaysaa cadaabkaa ilaahay tilmaamaya in la galo cadaabkaa cadaab sahlan ma aha laakiin kii galaa arki doona cadaabkaa cadaab fudud ma aha wax layskuma furto xoolo ma jirto qabyaalad ma jirto eex ma laha malaa'igtu kuma taqaano ina adeernimo ma taqaanay way kaa saari lahayd ilaahay wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala saurhiquhu sacuuda dhagax dheer baa ku yaala markaad 70 sano soo socoto oo salka timaado haddana waxaa lagugu mashaqaynayaa inaad dhagaxaa korto markaad afka gaarta buu yidhi ilaahay kullamaa araaduu an yakhrujuu minha afkeedii baa timid waxaad damacsantahay inaad ka soo baxdo uciiduu fiiha waa lagu celiyaa walahum maqaamicun min xadiid garoomo bir ah oo naar ah ayay wataan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala walahum maqaamicun min xadiid kullamaa araaduu an yukhrijuu minha min gam mar kastay damcaan inay ka soo baxaanay murugtii ka badatay uciiduu fiiha waa lagu celinayaa maxaa loo odhanaya waduuquu cadaab xaggee u socotay dhadhamiya cadaabka gala cadaabka dhadhamiya
warfu marka hore cadaabka gala saas ilaahay subhanahu wa ta'ala illa ilahi utilmaamay inna shajarata az-zaqum طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون قيد شجرة الزقوم لا يراهدو وددك الدنبيلياشا عنتدود وطعام الأثيم وغفر أوكل ونحاس أوكل كالمهل أو يغلي في البطون عروشو كوكر كريا كغلي الحميم بيا انت كل لاضي أتصوق هذه هذا دبك أتصارت إسلام مركز صار يسوس قد قدنا يا ساسو كلو ورحمة يا أبو إلى سبحانه وتعالى كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم قبتوا جيد إلا جحيم وإلى ليه مركز جيسان ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم بيها كلون عذاب كلون مضح وغشوبوا إلى إليه سبحانه وتعالى مضح حمان لقوا فكرة ومسكحة مضح وحلقوا فكرة واحد قصوا حمانها مضح وحلقوا لفكرة الدون آقرة لقى الجيبي حمان تبا للرأسية سادرتد بو إلى ليه بيها كلون مضح وغشوبا مركي الله غشوبا الله أرنا يا ذوق دمي معناها إنك أنت العزيز كي عزيز كاسماهين كي شرفت لها ما هينو كي متقانا قيمها بدنا وانتو لبستو ماشا ساقو طوافا مساجد هريريدا حمانتي وحياباك لا كسعد ذوق ددمي حقي اسعطا ساسا marka ahlu naarka loo qoranaya naartu waa naar walaalayaal jirkeena uma adkaysan karo naartu waa naar dhibaato badan ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ku tilmaamay mar alla marka ay ahlu naarka naarta galaan waxa la cabsiinayaan biyo kulul buu ilaahi yiri faqata'a waxa go'go'aya amaahum min di'aradooda way soo go'go'ayaan way soo qubanayaan war waa la isbedela markay ku cuntaba ilaah waa ku sameeynaya markastoo maqaarkaaga jisadkaaga baabao badalnaahum juludan ghayraha kullama khabbat zidnaahum sa'ira markastay hoos u dantay qaboobi rabto waa si horinayna buu yiri ilaahi subhanahu wa ta'ala كلما خبت زدناكم سعيرا مركا أسي هرينينا ذاتك مؤمنين تا جنة يكون رحيسنا يان ولا ليان وحي عبيان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حور العين بعد عيادك وضفدسا ويتمتعيان ويراحيسنيان ويشيكيسنيان خير وناك باكجرا جيريون مايان قبوبي مايان بكن مايان دقنقن مايان خير كي وناك يسيكو جيران أهل النار ميشا سيكو قيلنا يان ولا ليان عذاب كاسا عنت أوها شجرة الزقوم براشين أوها جركو ذا قوغا إيو صوصمين بمركا كجرا حتى أهل النار على الأرائك أهل الجنة على الأرائك ينظرون ويداونا يا أهل النار سيركركو ذي كداونا ينظر إلى سبحانه وتعالى أدونك مركي لجوغي من الذين آمنوا يضحكون كافرين تا قصد جرتو مؤمن كان لو قصد جري شعارنا بمركا لو أركو سننا بمركا لو أركو ولو قصد جري وعيابك ليسمين جري وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين مركي قريه هذا ويكون راح يسنجرين سان أقلنا ما أجيدا قميصكي قابنا وتلو انتقلوا حنجري أو لو قل قص لجري قركي النبي قول كقديدا لو قل قص لجري وحول بقى صلاة أو قير أو عبادات أو دين إلهي سان أقلنا فيري بينهم ديه جرين مركي النقدان إيه لذوذ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا ما انتصوا معها سو قيامة من لجوغو سو جنة مجران فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال ذيكو قصقص لا ينبير إلى سبحانه وتعالى سيد اللو عذابين على الأرائك ينظرون سريك الضاونيان سو لقو ما أبا المرين كافرين توحي سميين مفسرين تقاربا وحي دهين أهل النار كإنت الله يرى هذا صوبع هالمر انت يسوء أردان بألبابك قبل قصينا يا مركز مسلمين تهالمركو قصليان فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قال ذيكو قصليان ما أنت أنت أنبادينو عبادنا أنبادينو بالربا نقصل دورنا هذه إله هذا سبحانه وتعالى إله حق ينكبر يا إنه حقنا وافجيو نار تعدبك بدنا إله جسد كنا كإلهيو مسلمين تعطنا إله وحنا ربنا يا خير يا وناك ملكستو أي جوجا كي حنو صنع في ما تام إنه إله سيان إله كرجيننا كان بعض يسنا إله نوسو هنونيو مساجد هذا كان هنوسن إنه إلهي هنوك مركا قصيص وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته